السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وإذا سلامي أصحابتهم ميل والبا أجوبتان يوتيوب كان داونيسان ومحدين اوفيشال فضلا سبسكرايب ليك كومنت شير وحقنا وحي ديرجلنا maanta waxaa idin wada qiso aad u xanuun badan. Wuxuu ahaa wiil jecel mustaqbalka in uu horumar ka gaaro, balse nasiib daro awgeed ayaa u saamixi weysay hamigiisii. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu bartay gabar jirto dalka dibadiisa, gaar ahaan dalka Mareykanka ah. Gabartii ayay muddo wada socdeen. Gabadhii ayaa ka ballan qaaday in ay wadi doonto. Wiilkii ayaa ku farxay arrintaas. Bilooyin kadib wuxuu isku diyaariyay safarkiisii Mareykanka ahaa. Kadib markuu Mareykanka tegay, gabadhii ayaa u soo bandhigtay in uu guursado, asigana wuu ka aqbalay. Haa ayuu ku yiri. Kadib waxay ku tiri, waxaan u maleynayaa in aad gaartay hadafka aad ka lahayd mustaqbalka. Markaas ayuu ku yiri, haa, adigana ugu wacan midaas, mahadsanid. Maalmo kadib waxaa dhacay arooskoodii. Arooska kadib maxaa dhacay? Allahu Akbar. Waxba yaa hadalka idinku badinin. Gabadhii ayaa ahayd mid dhagar qabto. Waxay wadatay cudurkaasoo ah AIDS. Wiilkiina maysan u sheegin. Wiilkii wuxuu iska ahaa mid daacad ah. Arrintaas wiilkii ayaa noqday mid murugo ay la diris noqotay. Allahu Akbar. Bilooyin kadib wiilkii wuxuu isku arkay jirkiisii oo sii dhamaanayo. Allahu Akbar. Wiilkii ayaa bilaabay in uu dadka ka fogaado si uusan u faafinin cudurkaas. Wiilkii ayaa ahaa mid qalbi nadiif ah, balse intee u dambeyn doonto.